waxa inoo yimid bukaan daadiisu ay tahay 21 sano oo inoogu yimid xarunta bukaan socodka cunaha dhagaha iyo sanka ENT kaas oo sankiisu xiran yahay neeftuna ay dhib ku tahay inuu sanka ka neefsado markii aan u sameynay baaritaan caafimaad waxaan ogaanay in carjada sanka dhinac u janjeerto hilibna uu sanka kaga yaalo sidaas daraadeed waxaan go'aansanay inaan qaliin ku sameyno waxaan u sameynay qaliin oo ah septoblast kaas oo ah qaliinka toosinta qalooca sanka waxaan ka soo saarnay sankiisa qaybtii janjeertay sanka labadiisa dul hilibkiina waa laga soo saaray sidaas daraadeed hadda waxa uu neefsan karaa sida uu rabo sankiisana waa nadiif isbitaalka dalmar waxa uu ku yaalaa degmada hodan kilomitir 6 soo dhawaada walaalayaal Dalmar Specialist and Teaching Hospital.